السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا AMA Associates weli waxaan kusii guda jirnaa aasaaska dhaqaalaha qaranka ololaheenii aan bilaabnay insha Allah tacaala taxana noo noqon doona caawa waxaan ka hadlaynaa CGT ama Capital Gains Tax. waa maxay Capital Gains Tax? Capital Gains Tax waa canshuurta ku waajibta faa'iidada hantida maguurtada ah. tusaale ahaan waxaad leedahay hanti maguurta ah. hanti maguurta ah waxaa la yiraahdaa sida dhulka, dhismaha, maaragtay mishiinada, warshadaha, sidaas oo kale beeraha. hanti maguurta ayaa la yiraahdaa, waa hanti raasamaali ah. marka capital hantidaasi maadaama hantidaasi aad ku iibsatay lacag canshuur aad ka bixisay, hantidaasi adaa iska leh. marka mustaqbalka haddii go'aan aad ku gaartay hantidaasi inaad sii iibisid oo aad faa'iido ka heshid, faa'iidada ayaa laga canshuurayaa. sababta maxay tahay? in aan maaragtay dhiirigelinno sinaanta iyo cadaaladda muwaadiniinta. muwaadinku qaarna waa soo dhididaan oo shaqo ay soo shaqaysteen ayay canshuur ka bixiyaan oo gunnadii waddanka uu ku lahaa ay ka bixiyaan. qaar kalena ilaahay wax siiyey ama ha ku helaan dadaal iyaga ay geysteen ama ha ku helaan dhaxal ay ka dhaxleen waalidiintooda. marba haddii hanti adoo iska jiifa kuu shaqaynayso ilaahay ku siiyey, haddii aan waxba lagaa qaadanin, haddii cadaalad fal ma aha sidaas. marka si sinaanta iyo cadaaladda loo ilaaliyo, mar walbo adiga ku soo galaan wax dakhli ah, faa'iido ah, koror dhaqaale ah, dalkaagani waxbuu kugu leeyahay. sida dadka kale ay uga qayb qaadanayaan dalka dhisidiisa, dayactirkiisa, ilaalintiisa, adna waajibkaas qayb ayaad ka tahay. marka CGT waa canshuurta faa'iidada hantida. haddii aan soo gaabino, mushaar waa hal wado oo lagu kasbado dakhli. maalgashi aad maalgashato hanti maguurto ah oo kuu shaqaynaysana waa wado kale. xusuusno mar walba oo adiga hanti jeebkaaga ay ku soo korodho, waddankan waxbuu kugu leeyahay. ilaan waddanku meel kale oo wax ka keena male. dadka la doortay ee kuu adeegaya waa adeegayaal. wax kale ay ku dheer yihiin ma jirto. waxay ku adeegayaan hantidii iyo siyaasaddii iyo heshiiskii bulsho ee aad gacanta ka saartay ee aad u dhaarisay ayay kugu adeegayaan. marka ugu muwaadin, mar walbo adiga ayaa lagaa rabaa contribution wax la yiraahdo. sida reerkaaga aad u biilanaysid ayuu dalkana kaaga sugayaa inaad u biishid si joogto ah inta aad awooddo. taasina waa shuruuc iyo qawaaniin la dego oo la fiiriyo danyarta, la fiiriyo dadka waa artay hantida haysta, ayaa lagu keenaa nidaam waafaqsan constitutionka, dadkana cadaalad u ah ayaa wax looga soo aruuriyaa. deetana lacagtaasi dadka lagu celiyaa. capital gain maxaa la yiraahdaa marka? gain waa faa'iido. waxay ku imaataa faa'iidadaas hantida aad iibisay markii hore, qiimihii aad soo iibsatay iyo qiimaha hadda aad ku iibinaysid. qiimaha hadda aad ku iibinaysid hadduu sarreeyo waa la kala jarayaa. tusaale ahaan 10,000 ayaad waxaad ku soo iibsatay dhul, deetana beec ayaad u hesho 15,000 ayuu kuu gooyay dhulkii, waa iska sii iibisay. meeshaasi 15,000 haddii laga jaro 10,000 waxaa soo baxaya 5,000 oo ay ku waajibtay in la canshuuro. sidee loo canshuurayaa marka? marka ugu horeysa waxaa lagu siinayaa qoondo ama allowance waxa la yiraahdo. CGT allowance waa 3,000 oo baan waqti xaadirkan aan joogno. 3,000 ee baan ugu horeyso, tusaale ahaan shay aad soo iibsatay, waad sii iibisay, waxaad ka heshay faa'iido 3,000 oo baan ah, wax canshuur ee laguguma laha. laakiin inta badan hanti markaad iibinaysid 3,000 oo baan way ka badan tahay intaan ognahay. tusaale ahaan waxaad iibisay dhismihii waxaad ku iibisay $20,000 oo dollar. $20,000 oo dollar aad ku iibisay waxaad helaysaa 3,000 oo allowance ama qoondo aan la canshuurin waa canshuur dhaaf. 3,000 ugu horeyso lagaa canshuuri maayo. 17,000 ah kuu soo hartay ayay ku waajibaysaa canshuurta. marka waxaa kaloo isweydiin kartaa imisaa la iska qaadayaa marka canshuurta? meeqa lacag ayaa la iska qaadayaa oo rate waxa la yiraahdo. canshuur kasta waddankan waxaa loo sameeyey rate. rate-ku waa qadarka canshuurtaas la canshuurayo. hore waxaan usoo marnay income tax. waxaa la canshuuraya income tax 20%. waddankan capital gains tax waxaa la canshuuri jiray 10%. laakiin waqti xaadirkan aan hadlayno
canshuurtaasi waa la kordhiyey oo boqolkiiba waxaa laga dhigay 18 haddii aad tahay basic rate taxpayer. horaan usoo sheegnay basic rate taxpayer waxaa la yidhaahdaa martabada ugu hooseysa dadka canshuurta bixiya. 12,570 waxaa niri haddii ay kusoo gasho sanadkii canshuurta dakhliga ama income tax ma bixinaysid. wixii intaa dheer waxaad bixinaysaa boqolkiiba 20, haddana waxay isu bedelaysaa boqolkiiba 40, haddana waxay isu bedelaysaa boqolkiiba 45. Can you imagine? boqolkiiba 45 waa nearly 50%, half ayaa qofku uu ogol yahay inuu bixiyo maalqabeenka waddankan lacagta leh boqolkiiba 45 inay bixiyaan si ay waddanka ugu taakuleeyaan. marka waxaa ujeedaa mindsetka ama maskaxda sida u shaqeynayso waxay ku xiran tahay oo keliya ololaha iyo fahansiinta iyo tus oo itaabsiya. dadka waxay arkaan canshuurtii laga qaadaya dalka dib in loogu celinayo, ha ahaato caafimaad, ha ahaato iskuulaad, ha ahaato maaragtay difaac, dhan walbaba ha ahaatee. canshuurta marka CGT way ka yar tahay canshuurta income tax, way ka yar tahay. sababta ay uga yar tahay maxay tahay? marka waxaa la dhiirigelinayaa maalgashiga. waxaa la rabaa bulshadu in ay maaragtay ku dhiirato inay wax maalgashato oo hanti ay yeelato, hantidaasna ay qayb ka noqoto dhaqaalaha waddanka, formal economy. waddanka mar hadduu dhaqaalihiisii dhisan yahay, hantida heer sare ay marayso, waddanka sumcaddiisa kor ayay u kacaysaa. waddanka sumcaddiisa markay kor u kacdana waxaa sahlanaanaya waddanka inuu deymo soo qaato oo maaragtay waddanka uu ku dhiso. waa tusaale ahaan adiga haddaad shaqaysatid oo la og yahay bangigaagu markaa statementiga soo saartid sanadkii inay kusoo gasho $50,000, way sahlanaanaysaa bangigaas inuu ku siiyo deyn. sababta wale waxaa la aaminsan yahay nin iska bixin kara deyntaas inaad tahay. laakiin adigoo aanan shaqaysanin, haddii aad xisaab inaad furato bangiga aad u doonato, muxuu kaa faa'iidayaa bangiga? waxba deynta ma helaysid. waddankuna waa intaas un. waddanka dadkiisu hadday yihiin dad dhaqaalo leh, hanti leh, u baahneen gunno in la siiyo, inta shaqaysa ama employment rate-ka aad u sarreeyo, dhaqaalaha qaabka lagu cabiro markii la fiiriyana si fiican, lacag fiican waddanka ay soo gasho, sumcaddii waddanka ayaa kor u kacayso. taasina waxay keenaysaa waddanka in hadalkiisa miisaan uu yeesho. waxyaabaha uu u baahan yahay hantida uu soo iibsan karo asigoona lacag bixinin, ha ahaato hub, ha ahaato sahanad kale, taakuleynta beeraha, wasaarad kasta uu maaragtay mashaariic uu gelinayo, waddanka wuu u sahlanaanaysaa inuu deyn ku keensado. marka aaday u wanaagsan tahay qof walbo in uu qayb ka bixiyo qaaraanka. waa qaaraan bulsho. soomaalida marka maxaan ka baran karnaa cashirkan? maalgashigu Soomaaliya hadda waxa ugu badan oo la yeesho waa hantida maguurtada ah sida guryaha iyo dhulka. Soomaaliya waa dal aad u weyn, inta badanba 4 dal 5 dal oo hadda mug kula leh la isku daray Soomaaliya inay ka sii weynta. waxaas waa hanti meel taala. dhulku waa hanti, dhismuhu waa hanti, baddu waa hanti, mowqica ama meesha aad ku taalo waa hanti. marka waxay u baahan tahay hantidaasi maarayn iyo dadka in lagu baraarujiyo in shaqo abuur loo sameeyo. dadka ay shaqaystaan, ay helaan mushaar ku filan, mushaarkii wax ay ka dhigtaan, kayd ay dhigtaan, kaydkii kadibna ay maaragtay maalgashi bilaabaan. maalgashigii iyo kaydku wuxuu imaadaa marka dadka marka hore ay helaan in ay kasban karaan muruqooda, iyo maskaxdooda ku kasban karaan income. dakhliga markuu yimaado, qofka cashuur iska bixiyo way sahlanaanaysaa. waa in loo abuuraa fursadahaasi. qof walba wax uu ka naxo haddii loo sameeyo, waxuu ka naxo waxaan ka wadaa qofka haddii uunan waxba gacanta ku haynin maba naxo, nabaduunan ilaalinaynin, wax uu ka naxo dee uu ilaashado maba taalaba. laakiin qofka haddii loo sameeyo nidaam uu ku shaqaysan karo iyo fursadaas waxay keenayaan qofkii inuu maal gashto, dalkii hanti samaysto, hantida uu u naxo. marka wax allaale wixii qalqal ammaanka ku keenayo asigay si gaar u taabanaysaa. marka dadka ammaanka sugayo qayb ka noqonaya. marka waa loo baahan yahay dhiirigelinta dadka in ay hanti yeeshaan. hanti markay yeeshaanna si nidaamsan oo cadaalad iyo sinaan ay ku dhisan tahay looga soo qaado qadarka lagu leeyahay oo dalka uu ku leeyahay, deetana dib loogu celiyo dhismaha dalka. dadka aad ay u dhisanayaan waddanka hadda. magaalooyinka metropolitanka ah, Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo, Beledweyne, Baydhabo, Burco, adiga sheeg ilaa ay Garowe iyo Boosaaso, meel kasta oo waddanka aad tagtid dhisma ka socdo. dhisma xoog leh oo xawli laha ka socdo. dadkii weli heer waxay gaareen hadda aynan dowladda kaliya ku daynin oo wadooyinka xataa iyaga ay dhistaan, intay lacag isku darsadaan interlock ay wada dhigtaan xaafadaha maaragtay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho iyo magaalooyinka la halmaala.
marka taasi waxay ku tusaysaa bisayl gurigaaga markaa keligaa tahay aduu kuu qaas yahay laakiin ummadan oo ilaa 30 milyan markaa la degan tahay waa inaad wax la qaybsan kartaa canshuur hadday bixiyaan qaybtaada ka bixin kartaa income tax ha dhihin capital gains tax ha dhihin waxaan ka sheekeyn doonaa corporation tax ama shirkadaha qaabka ay u bixiyaan canshuuraadka waxaasoo dhan nidaamyadii in wacyigelintii annagana qayb aan ka qaadano waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa dadka aqoonta leh sharciyaqaanka looyarada accountantska auditorska maaragtay injineerada qof walba oo Soomaali ah waqtigii lagu baahnaa way taagan tahay in aad dadka wax u sheegto aaladii wax la iskugu sheegi lahayn waa la fududeeyay oo waxaad adigoo gurigaaga jooga ama adigoo xafiiskaaga jooga ayaa dadkaaga wax u sheegi kartaa marka muwaadin waqtigaaga wax ka go dalkaaga wax ku darso ilaahay hadduu idmo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ama aan u dhiirigelinayaa dhalinyarta meel walba kacdoonada nadaafadda ay ka sameeyey ee isxilqaamay Soomaaliya waa wadan xeeb leh waa wadan aad u qurux badan waa wadan ma aragtay u baahan in yar in la geliyo maalgashi ay u baahan tahay marka canshuurtan oo kale CGT haddii program nidaam leh la sameeyo xataa maalgashadayaasha adduunka ku soo dhiiran kara meel walbo oo system iyo nidaam leh waa lagu soo dhiiradaa sabab qof walba wuxuu rabaa meeshuu wax ku save gareyn karo anigu haddaan hadda maanta UK maalgashanayo canshuurta iyo rates kan fiirinaya wadanka aan maalgashanayo intuu la egyahay haddii aan faa'iido ka helayo Soomaaliya dawladdan doonaba aan u dhasho tusaale ahaan dadka Ingiriiska ah dadka Carabta ah dadka ma aragtay wadamada Afrikaanka ah caalamka oo dhan Soomaaliya system maaliyadeed oo la isku haleyn karo haday leedahay waa wadanka ugu horeeya oo loo soo carari doono in la maalgashado sababtoo ah waxaad leedahay wadankan wuxuu leeyahay import export duties kiisa aad u raqiis u yahay capital gains tax aad u raqiis u yahay corporation tax aad u raqiis u yahay xataa income tax ka aad u raqiis u yahay inheritance tax kulli waa ka wada sheekeyn doonaa mid u istaagi doonaa marka waxaa leeyahay why aad Dubai loo maalgashanaa why aad loo maalgashanaya Turkey why aad loo maalgashanaya wadamada caalamka meel walba Singapore meel walba aad aragtid aad maalgashi xawli leh adduunyada ugu imaanayo waxa waaye waxay soo bandhigeen program ama barnaamij aad iyo aad dadku u dhiirigeliya dhaho waxaagina waa ku amaan waa la isku keen haleyn karaa cid waxaaga xoogi karta malaha canshuurta laga qaadayna waa intaan canshuurtii qadarkii la Soomaaliya laga qaaday iyo waxay isba bardhigayaan caalamka marka waxay leeyihiin annagoo intaan heli karna maxaa meel kale aan headquarters uga dhiganayna waxa laga yaabaa mustaqbalka insha Allah taala waxaan rajaynayaa Silicon Valley inay noqoto magaalada Muqdisho Hargeysa Kismaayo iyo Beedhaba intaba inay noqdaan magaalooyinka economic zones ka ah ee aadka canshuurta intii loo dhimay maalgashi oo adduunkii oo dhan u soo doontay inay noqotaan aan rajaynayaa ilaahay hadduu idmo property marka halka noqdad aan rabo inaan aad iyo aad aan dul istaago waxay tahay capital gains tax waxaan niri waxay waajib ku tahay faa'iidada aad ka hesho hantida waa tay marka waa hanti kasta oo maguurta ah marka laga reebo guriga hoyga ku ah waa main residence guriga hoyga ku ah ee adiga gaarka aad u leedahay la canshuur dhaafay ama kuma jirto guriga hoyga ku ah oo main residence ku ah intaad iibsato haddaad sii iibiso muddo kadib oo aad faa'iido ka hesho waa canshuur dhaaf weeyaan laakiin inta kale oo hanti maguurta ah oo commercial properties ah warshado ah ama noocay doontaba ha ahaatee hanti ah waxaa saaran capital gains tax marka accountability qaabka loo xisaabaa CGT waa self reported qofka ayaa ma aragtay milkiiluhu ah ayay saaran tahay mas'uuliyadda diiwaangelintu waa inaad isdiiwaangelisaa markeeda horeba gurigaaga wadanku uu ka diiwaangashan yahay inaad guri leedahay marka aad gurigaas iibisidna waa inaad soo diiwaangelisaa taasi waxay tilmaamaysaa daacadnimo daahfurnaan isla xisaabtan iyo nidaam marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa taxanahan in aan aad iyo aad u dhiirigelino fahanka maaliyadda iyo qaabka ay u shaqeyso hadda waqti xaadirkan waxaan maraynaa taxation waxaana taaban doonaa qayb kasta oo maaliyadda ka mid ah aad u mahadsantihiin kulanti wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh